qaaliga markasta adduunka ka joogtaan maasha allah waxay soo doontay oday raba inankiisa gabadh u doonaya ayaa noo yimiday family u raba gabadh inankooga ayaa noo yimiday markay noo yimaadeen maasha allah wuxuu noo sheegay inuu rabo gabadh mutacalimada oo dhamaysay jaamacad oo maasha allah wax baratay inankiisina wuxuu noo sheegay inuu jaamacadda dhameeyey wax bartay oo shirkad leeyahay oo maasha allah gaarigii gurigii wax kasta u diyaarsan yahay bes ay ka dhiman tahay oo kaliya caruusadii marka maasha allah waan soo dhaweynay hooyay aabba ila hadlay waxay yidhaan wiilkooga waa saas iyo saas odayg baa ii yimida inankayga waa saan dabcan waa cariis aabihii wuxuu isku dayayaa inuu deena qanciyo ama inankiisa igu qanciyo marka hooyadii lamay socon waxaa weeyaan cariiska aabihii iyo walaalkiisa yar ayaa noo yimiday safar bay ku maqnaayeen qisadana waa dalka lubnaan bay ka dhacday maasha allah markay noo yimaadeen wiilkii markaa 3 bilood isla soconay wiilka 2 jeer baan isla hadalnay waan isfahmi weynay markaan isfahmi weynay kamaan helin isaguna igama helin aabihii hooyaan u sheegay aabihii hooya markaan u sheegay waxay ugu yidhaahdeen okay waxaan dareemay inaan ahayn qofkaan rabay inaan nasiib kala wanaago oo isfahmi karin oo aan isqaadi karin marka aabihii baa loo sheegay aabihii markii loo sheegay okay buu yidhi sheekadii halkiiba ku xidhan tahay laakiin aabihii markasta wuu noo iman jiray aabahay wuu la saaxiibay aabahay wuu la saaxiib ahaa markuu aabahay la saaxiib ahaa oo sidii cilaaqadii way sii socotay bas yacni 2 qof oo maaragtay carruurtooda isku darsanaya oo sheekadooda halkii ku dhammaatay may ahayn aabba iyo aabihiis wiilkiis waxaa dhacday inaan odaygii cariiskii aabihii cariiskii iminka waxa weeyaan caruuska aniga ninkayga ah wiilkii markii hore la soo doonay aabihii baa dabcan isguursan doonaa maasha allah markaas aabuu la saaxiib ahaa siduu aabbo ula saaxiibka ahaa oo maasha allah uu iman jiray gurigayaga wuxuu weydiin jiray xaggaan tegay waxaan sameeyey yacni markasta waxay dareensiin jiray jacayl ihtimaam sidii ahaa aan arkay qofkan inuu ihtimaam siinayo oo maasha allah qof maaragtay aniguna waxaan isku dayay inaan u bedelo mashaacirku ii bedelayo kale maaragtay yacni kalgacaylkii wanaaggii uu muujinayay inaan u muujiyo markii dambe subxaan allah waxaa yimid inaan isjeclaano odaygii iyo anigii cariiska dhalay dabcan uu yidhaahdo aabbo gabadhaadaan rabaa oo halkii odaygii isku aroosi doono inankiisii baa loo sheegay isagaa u sheegay 7 bilood ka bacdi markuu u sheegay dabcan inankiisii aroosi lahaa aabahayna ku yidhaahdo anaa guursanay gabadhii aad aroosi lahayd dabcan uu ka xanaaqayaa oo wuu xanaaqay markuu xanaaqay dabcan aabihii umuu joojin anagu sheekadayda baan iska wadanay sheekadayda markaan iska wadanay maasha allah halkii baan isku guursanay markii aan isku guursanay dabcan isaga wuxuu qabaa gabadh hore wiilkan aan aroosay ninkan aan aroosay oo wiilkii aniga la soo doonay aabihii wuxuu iga waayay 20 sano haddana waxaasoo dhan waan iska iloobay waxaan ku iloobay jacaylka iyo kalgacaylku ii muujiyey iyo maasha allah wax kastana waa xawayaan jacayl iyo qofku maaragtay inuu ku siiyo wanaag kuu muujiyo kalgacayl kuu muujiyo ku dareemi karo aad wax kasta ku iloobi kartaa halkuu inankiisa ku ahaa qof noloshiisa dhanba hamigiisu yahay shaqadiisa oo gabadhu u tahay yacni waxa ugu dambeeya uu ka fikiri jiray shaqadiisa iyo waxbarashadiisa waxyaalahaas oo shaqadiisa markaas saasay ku dhacday maanta maasha allah waxaan isku leenahay wiil baan isku leenahay sanad baan isqabnaa anigu waxaan jiraa 23 waqtigan xaadirka sheekadan waxay dhacday 2 sano ka hor maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh